taariikhdu ku beegan tahay 19 bisha November sanadka 2024 waxaan ku faraxsanahay anigoo ku hadlaya magaca wafuudda qiimaha badan ee soo gaartay magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya sida milgaha iyo maamuuska leh ee maanta ay noo soo dhaweeyeen bulshaweynta ku nool magaalada Nairobi qayb kamid ah oo ay kamid yihiin Bulqaas Maslax gudoomiye ku xigeenkeena wiilka dhalinyarada Jibril Nuurani Iftiin walaalkay Aways iyo fannaankeena caanka ah ee Shiina Minay waa ku mahadsantihiin sida aad isugu xilqaanteen muddadii waqtiga dheeraa ahayd ee aad halkan u fadhiseen isla markaana annaga aadna sugayseen waad ku mahadsantihiin sida aad isugu xilqaanteen inaad nagu soo dhaweysaan magaalada Nairobi gaar ahaan garoonka Jomo Kenyatta intaasi kadib waxaan hambalyo leeyahay beelaha jireerweyne ee ku nool daafaha dunida oo u dabaaldegay xalay ilaa maalmihii la soo dhaafayay sanad guuradii saddexaad ee ka soo wareegatay markii dhidibada loo taagay calanka beelaha jireerweyne xalay oo qorshaheena uu ahaa in xafladii lagu qabanayay magaalada Nairobi aan goobjoog ka noqono balse cilad farsamo oo dhacday awgeed niyadda iyo qalbiga kala joognay qayb ka mid ah xubnaha xafladda ka qayb galayay oo aan ka taleefan kula hadalnay balse inta aan joogno magaalada Nairobi bulshada aan u nimid baan iswareysan doona xoga badan baa kala qaadan doona bulshada aan ka dhalanay ee wadankii joogta iyo kuwa halkan joogta oo isku mid ah baa waxaan jecelnahay sidii loo mideyn lahaa community-gaas annaga aan ka dhalanay ayaan halkan kula kulmi doona waa iswareysan doona inta noo timid maanta iyo inta maqan waad ku mahadsantihiin sida aad noogu soo dhaweyseen magaalada Nairobi aad u mahadsantihiin بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى مركود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان ولا لا شرفت له هل كان وصول دبي وكميديا ولا كان جبريل مصلح ميني سميجي أواس يو أفيان كان iyo dhamaan walaalaha kale kaamiramanada aad u mahadsantihiin waxaan aad ugu faraxsanahay inaan joogno maanta caasimadda dawladda Kenya ee Nairobi ugu soo dhaweeyeen walaalaheena waxaan aaminsanahay inaan joogno qayb ka mid ah waddankeena maadaama Soomaaliya markii laga soo tago wadamada markii la dhaho walaalaheena qurbo joogta meesha u joogaan waddanka ugu badan ee Soomaaliya ku nooshahay maadaama ay tahay waxaan aaminsanahay inaan joogno magaaladiina labaad mana dareemayno inaan nahay dad oo qurbo joog ah waxaan joognaa waddankeena qayb ka mid ah aadaan ugu faraxsanahay sida wasiirkeena oo sheegay qorshaheena wuxuu ahaa inaan ka soo qayb galno xafladda weyneed ee munaasabadii saddexaad ee sanad guurida calanka beelaha jireerweyne ama Soomaali Bantu laakiin duruufo jira awgooda waa noo suurtagali waase waxaana kala joognay qalbiga walaalaha qaarkoodna waxaan kala jirnay dhinaca social media ama live-ka aan kaga jirnay midda kalena waxyaabaha aan u nimid kaliya ma ahayn in aan ka qayb galno xafladdaas iyo munaasabadaas waxyaabo ka weyn oo ka balaaran ah u nimid insha Allah qorshayaashaasna waa fulin doona oo ugu horeyso kulamo wada tashi ah iyo kulamo isku xir dhamaan beesha meel kasta ay joogto dal iyo dibad in ugu yaraan information sharing la noqdo oo xogaha la isdhaafsado kuweena qurbo joogta ah ee kuweena qaran joogta ahba in la isku xiro awoodeena la mideeyo awoodda dhalinyarada la mideeyo awoodda aqoonta la mideeyo awoodda dhaqaalaha la mideeyo iyo intaas in ka badan ba insha Allah waxaan aad ugu faraxsanahay sida quruxda badan ee milgaha leh ee loogu soo dhaweeyay airportka insha Allah waxa hadalkeena dambe waxaan u dhigan doonaa kulamadeena dambe aad u mahadsantiin walaalaheena dhamaantiin marka hore waxaan mahad celinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala oo noo soo fududeeyay safarkeena in halkan ku imaano magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya ujeedka ugu weyn safarkeena waxa waaye sar u qaadida wacyiga bulshada arrimaha caafimaadka waxbarashada siyaasadda iyo dhaqan dhaqaalaha beelaha jireerweyne ee Soomaali Bantu iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeedba doorkii ummadan ay ku lahayd inaan muujino haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala idmo inta magaalada aan joogno waxaan la kulmi doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan ka soo saari doonaa communique ama war-saxaafadeed haddii Ilaahay idmo oo baahda warbaahinta iyo guud ahaanba aan la wadaagi doono ujeedka halkan aan u nimid waa inaan wacyiga bulshadeena qoys iyo qaraabo iyo saaxiibaba aan kor u qaadno waan u mahad celinaynaa qof walba oo arinta door ku lahaa waxaan si khaas ah ugu mahad celinaa dhalinyarada meel walba adduunyada ka joogaan arinkan doorka fiican ka qaadanayso iyo madaxda dhalinyarada hawshan isku abaabushay
insha allah maadaama jararweyne maanta state oo Soomaaliya ka mid ah uu iskugu tago aysan jirin in insha allah Soomaaliya ka yagreeli doono aan heli doono xuquuqaadka badan ee nooga maqan taasna waxa lagu heli karo wax kale ma aha in kulamada noocan oo kale la badiyo aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh